munaasabadii 10 sano guuradii xusbi xaakimka Kulmiye oo 10 sano jirsaday munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen abadiba hal doorka labeenta xusbiga Kulmiye xildhibaano siyaasiyiin aqoonyahan dhalinyaro haween iyo mas'uuliyiin ka socda xusbiyada mucaaradka ah munaasabadaas oo dareen gaar ah siinaysa madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradii 10 sanadood ee u dambeeyay kamid ahaa xukuumadii kala dambeeyay xusbi xaakimka Kulmiye maadaama ay 10 sanadood ee u adeegayeen qaranka iyagoo laba muddo xileedna ku yimid doorashada codka shacabka maanta xafladan waxa weeyaan sanad guuradii baan oran karaa xusbiga Kulmiye 10 sanadood uu dalka hogaaminayay 5 sanadood iyo 5 sanadood kale 10 sanadood buu maanta hogaaminayo oo buuxsantay 18 sanadood ayuu xusbi qaran ahaa guulaha Kulmiye ee kala duwanaa iyo xilliyada kala duwanaa u soo marayna dad badan baa taariikhdiisa ku suntan oo qofba meel ka soo galaya oo ay kamid tahay ama uu kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka inuu maanta runtii munaasabadda u sameeyay aad iyo aad uu madaxweyne ku-xigeenku maadsan yahay markaan arkay halka inay Jirsatay xukuumadda Kulmiye taana ma nixin oo de waa xisbi aan ka tirsanaan jiray golaha wakiiladana ku fadhiyo xisbiga Kulmiye waa xisbi guura waa xisbi soo halgamay waa xisbi 10 sano ee ka badan oo uga fadhiyo inuu xukuumadda loo qabtay 10 jirsiga xisbiga Kulmiye oo Axmed Cabdi Dheere ku daray iyo xubnaha xilka hayay oo 10 jirsaday oo ugu weyn yahay madaxweyne ku-xigeen aynu leenahay hambaliyo kow xisbiga Kulmiye oo muddo 10 sanadood ay marka xilka hayay hambaliyo xisbiga Kulmiye oo muddo 18 sanadood jiray waxa ila soo hadlay maalin marwadii Aamina iyo madaxweynaha ila soo hadlay waxay ku codsadeen inaan ka mid noqdo xukuumadii dhinaca runtii waxay ahayd aad farxad bay ahayd weyn waxay fursad aan wadankayga ugu adeegi karo dhinaca kalena runtii waxay arin culus bay ahayd way shaqo wanaagsan waan haystay reerkayga iyo carruurteedana waa la joogay marka arin runtii saa u fudud ma ahayn alxamdulillaah waxa runtii wixii fududeeyay xaaskayga halkan joogta maanta ayaa ii fududeysay saas baan ku soo biiray dawladda walaalayaal runtii waxay nagu tahay culays badan oo sirag badan sheegeen muddada 10 sanadood ee xilkaanu haynay anoo uga mahadnaqaya labadii madaxweyne ku-xigeen labadii madaxweyne ee runtii noo gartay inaanu la daadahayno xilka weyn ee loo igmaday ee ku dhaarteen annagana ay nooga dhigeen xubno taageeraya waxaana goobtaasi hadal dheer oo dhinacyo badan taabanaya ka jeediyay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Sameeyey oo ahaa 10 sanadood u dambeeyay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland sidoo talada u sii haysan lahaana wax ku imanaysaa in xilkan aynu hagaajino hadaynu kulmiyahay xilka aynu hayna hadaynu hagaajino oo sidii loo baahan yahay u qabano ummadda waxay mar walba noogu abaalgudi doontaa in xilka inoogu celiso taana waxaan rajaynayaa inaan aanu diyaarsanahay inaan ummadda u adeegno waxay xilka ay nasaartay inaan u adeegno si daacada oo maartay dawladnimo ah 7 sano waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa labada madaxweyne la soo shaqeeyay 7 sano madaxweynihii hore meel buu soo gaarsiiyay sanadkii saddexaad baa madaxweyne labaadna aan wada shaqeynaynaa isna intii in lagu hadda wadaa haddii halkii hore wax ka qalloocdeen ka dambaa saxaya kana hadda wax ka qalloocdaan ka dambaa si buuxin doona saan isla garan waa qoris ku dhiib marka waxaan ku faanaynaa inagu Kulmiye waxaan ku faanaynaa ka inta shaqada haysa iyo inta dibadda joogta xisbiga Kulmiye ka midaba in mar walba isla barbar taagan taliye tusaalaba Xamse Dabaal RTN TV Hargeysa.